waxaan bartan kaga jirnaa jabtarkeennii koowaad maadada xisaabta fasalka form 4 casharka waxaan ku baran doonaa convention identities midaalada conventionka ah sidoo kale waxaan baran doonaa example 1.2 example 1.1 hore oo soo qaadanay example 1.2 ayaan iyadana halkan ku daraasay doonaa dawaaleyda waayahay convention identities. The following identities hold for an angle theta for which the functions are defined. Identityashan aba midaaladan soo socda waxay sax ku noqonayaan xagal kasta oo theta oo function kasta oo la yaqaano leh. Functionada la yaqaano definedka ah waa 6 function. 6daas function xagal kasta oo theta ah oo ay leeyihiin waxaa la mid noqonaya convention kan soo socda tusaale waa kana marka function kana la yiraahdo convention kana la yiraahdo convention ana function ka ayuu la mid yahay ana waxaan leenahay marka cos 90 degree minus theta waxay la mid tahay sin theta intaan waa cos a minus b u qoran tahay maxay u qoran tahay cos a minus b markii laga shaqeeyo waxaa soo baxay sin theta soo baxayso markii la isku madaaliyo waxay la mid tahay sin theta waa conventional iska leeyahay sidoo kale sin 90 degree minus theta waxay la mid tahay cos theta labada cagsi isku yimaado was bedeluhaan sidoo kale tan 90 degree minus theta waxay la mid tahay cot theta saddexdan waxa la yiraahdaa asal waa muga sin iyo cos iyo tan asal waa ay sidoo kale sec 90 degree minus theta is equal cosec theta sec waxa waaye reciprocalka cos waaye sec waxa waaye reciprocalka cos ya reciprocal ma kullee maxaa loo jeedaa reciprocal waxaan ula jeedaa tusaale cos hadday tan tahay sec waxay la mid tahay 1 la hoos dhigay sec 1 la hoos dhigay sec ay la mid tahay cos maxay la mid tahay 1 la hoos dhigay sec sectuna maxay la mid tahay 1 la hoos dhigay cos marka costa asal sectuna waa faraca leeda sectu waxay ka timaadaa costa ka timaadaa convention buu la joogo marka sec 90 degree minus theta maxay la fac tahay cosec theta cosec 90 degree minus theta waxay la fac tahay sec theta sectuna waxay ka timaadaa sin ayaa waxay la mid tahay idana 1 over cosec ay la mid tahay cot 90 degree minus theta waxay la mid tahay idana tan theta cot waxay ka timaadaa tan ayaa waxay la mid tahay 1 over cot idana saddexdan waa asal saddexda kalena 1 over ayaa lagu heli karaa marka convention identities kuwan ayaa leeyahay lixdan xabba ayaa leeyahay midaalada convention identity hadda 90 degree aan qaadanay meeshan 90 degree aan qaadanay 90 degree waxa loo bedeli karaa radian ha loo bedeli karaa midaalada la midka ah waxa lagu heli karaa loo domainka real numberka oo domainka ah iyadoo lagu bedelayo 90 kaas pi over 2 lagu bedelayaa yani haddii meeshan pi over 2 lagu bedelo convention ku ma iska bedelayo cos pi over 2 minus x is equal tan x cot pi over 2 minus x is equal tan x oo kala dhigi karaa marka 90 degree bis la inay meeshan qasab ahaato maahan waa degree radianka u dhigmo waxa waaye pi over 2 u dhigmo waayahay tusaalaha 1.1 markan keen waxaana la yidhi find the exact value waxaa soo leshaa qiimaha saxda ah of theta or x qiimaha saxda ah ee ay leedahay theta kow angalka theta amba x that satisfies kaasoo sax ka dhigaya each of the following isla egedan soo socda amba mid kastoo soo socda kaasoo sax ka dhigaya soo hela leeda waxaa la siiyay number a cot theta is equal tan 25 degree equation la siiyay cot oo theta wadata ayaa waxay la faatahay tan 25 degree angalkan theta meeqo lamid ah markaas equation kan uu sax u noqdo cot qiimo ay qaadan karto meeqay noqotaan 25 ay watahay angalkan theta iyo 25 kan booskan angalkan meeqo u dhigan yahay la yiraahdo marka sidoo kale number b waxaa la yiraahdaa cos minus 30 degree is equal sin theta
sidoo kale waxaa la yidhahay cosec 3 pi over 4 is equal sec x meeshan kan x aa laysiiyaa kuwaana theta laysiiya sababta data laysoo sheegay theta oo dhan bas x waxay rabta kusoo baxdo laakiin angalada soo helaa la yidhaha solution aan leenahay marka number a soo qaado number a waxaa laysiiyey cot theta is equal cot theta is equal tan 25 degree cot theta waxay la tahay tan 25 degree aa laysiiyey waya cot tan soo bedelaa marka cot tan soo bedelaa cot maxay la mid ahayd dad convention ay la mid ahayd convention ay la mid ahayd waxay ahayd tan 90 degree minus theta ayaa cot la mid ahayd intaas soo qaado marka tan 90 degree minus theta is equal cot tan la mid ahayd cot waxay la mid ahayd tan 90 degree minus theta is equal cot theta ayaa dad meeshaas ahayd marka cot theta tan bixi booskeera intaan ku bedelo tan 90 degree minus theta is equal tan 25 degree de marka halkaan mugula joogo marka isla baxa tan iyo tan isla bixi tan iyo tan hadii isla baxaya soo haraa marka 90 degree minus theta iyo 25 degree soo haraysa waa kana 90 degree minus theta is equal 25 degree kadib remove the bracket kan bracket ka saar bracket laga saar muxuu noqonaa 90 degree minus theta is equal 25 inta soo baxaysa inta 25 inta 9 degree minus theta this san theta soo helo 90 gan plus y inta 90 ka jara inta 90 ka jara meeshan 90 gan iyo 90 waa isla baxayaan 90 gan iyo 90 gan waa isla baxayaan inta minus theta bisa iga soo baxaysa minus theta labadan hadii la kala jaro 25 hadii 9 laga jaro 65 aa soo baxaysa 65 oo minus aa soo baxaysa 65 oo minus aa soo baxaysa kadib laba minus isla cancel garoobayaan waxaa soo baxaysa tan waxay la mid tahay 65 degree ay la mid tahay soo baxaysa tan waxay la mid tahay 65 degree soo baxaysa labantii aan kala laba minus la bixin ay number b maxaa la siiyay cos minus 30 degree is equal sin theta ay sin theta maxay u dhigmaysaa sin theta waxay u dhigmaysaa sin theta waxay u dhigmaysaa cos 90 degree minus theta ka timid cos 90 degree minus theta ayaa sin theta la mid ah ku bedelo cos minus 30 degree is equal sin theta meeshii waxaan ku bedelaa cos 90 degree minus theta kadib cos iyo cos aan isla saaraya cos iyo cos aan isla saaraya waxay soo baxaa minus 30 degree is equal 9 degree minus theta kadib waxaan sameeyaa remove the bracket bracketan ka saara tan ka saara waxay soo baxaysa minus 30 degree is equal 90 minus theta dan kadib waxaan sameynaa theta saan usoo helo 90 degree in laba dhinac ka jara 10 degree laga jaray 9 degree intana 90 degree minus theta laga jaray 90 degree naqay 90 degree gan iyo 90 degree gan isla baxaa haday isla baxaana labadan waa isku darsamayaan sababtoo minus ay wataa 120 naqay waxaan leenahay minus 120 waxay la mid tahay minus theta halkaan mugula jooga minus kan iyo waxa isla baxaa minus kan isla baxaa haday isla baxaan maxaa soo baxaa soo baxa 120 degree inay la faatahay theta ay la faatahay muga theta la soo hormari qoraal ahaan theta la soo hormari theta waxay la mid tahay 120 degree idan waa kaasa 120 degree theta waxay la faatahay 120 degree waayahay number c ay haray number c waxa la yiraahdaa cosec 3 pi over 4 waxay la faatahay sec x theta maanta laga saar x aa laga dhiga sag magay la mid ahayd waxaan rabaa inaan sag bedelo sag waxay la mid ahayd cosec 90 degree minus theta maadaama angalka una thetahin x uu yahay maanta waxaan leenahay sec waxay la mid tahay cosec 90 degree minus x uu la mid aan leenahay intaas ku bedelanaa boosker cosec 90 degree xataa boosker waxaan isticmaalay waxaan ku bedelaa pi over 2 minus x aan ka dhigaya halkaas dan kadib cosec iyo cosec aan isla bixinayaa cosec isla bixinaya angalada bis ay soo harisay 3 pi over 4 iyo pi over 2 minus x ay soo harisay halkaan mugula joogo waxaan sameynaa marka multiply both side by 4 4 tan hoosteesaan u baabiyo labada dhinac waxaan ku garaacaa 4 aan ku garaacaa haddaan 4 inta ku dhifto intana 4 ku dhifto kadib isla baxaan isla baxaya
4 tan iyo 4 tan isla baxayaan lama 4 isla baxayaan inta xayga soo baxa 3 by bis 4 tan intay ku dhacee intana waa ku dhacee inta xayga soo baxa 3 by inta xayga soo baxaysa 4 by over 2 minus 4x step ka labadan isku yaray karaa labadan waa isku yaray karaa naan isku yaray ayna qiimo 3 by waxay la mid tahay inta afar lagu qaybi waa 2 by minus 4x sidii ku soo laabanay kor iyo keen marka kor haddii la geeyo intaan haysanay sidaan x 4x soo helo 2 by-dan baabina meel walba 2 by ka jara 3 by-dan waan ka jara 2 by 2 by minus 4x waxaan ka jara 2 by waxa isla cancel garooba amigo 2 by-dan iyo 2 by-dan isla baxaya inay 4x iga soo baxaan rawacaga labadan waa kala jarmeen 3 by haddii 2 by laga jaro hal by soo haraysa intana minus 4x soo haraysa divide both side by minus 4 meel kasta waxa u qaybinaysa minus 4 u qaybi haddii minus 4 inta loo qaybsho waxay noqon minus 4 loo qaybi minus 4 iyo by loo qaybi minus 4 minus 4 kan iyo minus 4 kan waa isla baxayaan x dhinaca soo baxaysa x ayaa dhinaca soo baxaysa dhinaca x soo baxaysa dhinacana by minus by of 4 ay soo baxaysa dan kadib qaabka kala hormari leh bis shaqo kala ma dhinay kala hor x hormari x waxay la mid tahay minus by of 4 halkaa ay ku dhamaanaysaa iyadana saalaha c halkaa ay ku dhamaanaysaa isagana in halkaa ay ku soo dhamaad cashir daawadayna sharafta badan waa halkan soo gaartay waxaan ka codsanaynaa channelkeena subscribe noo saartid mahadsanid